صار انت يرد البص صار شوفنا قوات تدكو ككعان قوات تدكو ككعان شوفنا دايران أنا شجع المقاطع أنا ليش دعية دكا كل ما توبية كنت دلي هلكن شجع الوالي مش قلت بان شوفنا دكو ككعيو دكو سيادية لنا أمام كوينادين دبنسكا ديجان كوينادين دكا عاونيان إلا هذا عاونتا أيضا لنا أمام كسيدة كلا دبنسكا كوحا دكا وايشوان قوتو وعاونيان دكا إلا هذا ويسسوبين يديدا لنا أمام كمدو دكا يسوباني بس دكا وكاين وياي سيدا غلطان إلا عبد المدني إلا عبد المدني حتى بدل المدني اللي إحنا كنا خلنا دمار ومدى الصومالية عالم كتير مقاطع هلا شيء بيقولوا أنا ليش أدعي ليش بدنا سوى قوات إسرائيل مغالية تكسيرهم إحنا كنا خلنا دمار ومدى الصومالية هلا شيء بيقولوا هلا شيء بيقولوا هلا شيء بيقولوا ولي شكرا أيام كنت بتسمع عنه أنت مركزتي نلا أنا كره وده معه من الدشة الصومالية جالسين iyo xukuumadda markaas hadda goobjooga haddana ka yeeraya hadda halka dowladuhu ay ka wadaan hawsha xukuumadda ay ka wada hawsha dad ayaa hadda ku maraaradooda halkan bahraal lama gargaarku way joogaan dadka waxay gurayaan agaadka ayay gurayaan sidoo kale askarta iyo booliska iyo booliska ardayda kanaagu waxay caawinayaan shacabka ayay caawinayaan ممكن أيامنا كنا dadka ay ku jira fiilkiisu falsafada naayirka oo caawinaya dadka oo ka wadana ilaa hadda naayir injineersiyad دين الدين على يبدأ شعبك ما يكفي يعني بالتبع دين التجدد أمامك وعليك الجوانب ويتشورون ويحيرها سيجدن بيريال
dadku sheegayaan lama anaka dadkeedu soo jeedaa lama anaka dhammaan waa yimaadeen xukuumaddu gargaarka fidinayaan laakiin kan allah subxaana watacaala baa ka badan kara dhalinyarada maamulka magaalada turkiya wasaaradda waa dadkeed lama anaka waa dadkeed dadka hadda waxaanu jiray hadda caafimaadda way socotaa lama anaka biyaha lama anaku waa diyaariyeen caalamda ay wadaan sayjeedaan dheewaday agabkii laga soo diray weerayna markan ilaa hadda duritaanka agaabta lagu jira aadiyaad wardawaareel ducadu waa dankiina waa xilli dambe waa saacado dambe ducaduna waa la aqbalayaa insha allahu tacaala walaalayaal ducadu waa dankiina lama anaku waa diyaar beerjeed weegan weeye ciidanka lagu booliska iyo ciidanka ardayda talaagu waxay caawinayaan shacabka si markaas looga badbaadiyo dadkan